السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر ومانتنا هلكا كان سيدي عاددين وهايدي كسو بندقي دونا برنامج يديني تحنها اها كساب سنة أفكا إيا دقنكا maanta waxaynu ka hadli doonaa arrimaha ku saabsan afka iyo dhaqanka gaar ahaan qaybta mahmaahda Soomaalida inta aanan barnaamijka inoo bilaabin waxa aan marka hore si xishmad iyo qadarin la idinka codsanayaa inaad dhammaantiin barnaamijka inoo saartaan subscribe like and share maanta waxaynu qaadan doonaa mahmaahaha nooca loo yaqaano mahmaahaha tiraleyda ah sidaynu ognahay mahmaahayadu waa mahmaah kowleeye iyo mahmaah tiraleyda mahmaahi waa mahmaah kaligeeda oo kowley ah mahmaahina waa mahmaah tiraley ah oo ama labalay iyo wixii ka sii badana bal markaa maanta waxaan doonayaa inaynu qaadano mahmaahaha tiraleyda ah kow mahmaahda koobaad ee aan rabo maanta inaan idin soo gudbiyo waxa la yiraahdaa magaceeda afar way bishaa haday ka badato se way biisaa afar way bishaa haday ka badato se waa ay biisaa ama waa ay xumaysaa waa sideedley mahmaahdaasi afar waa ay bishaa hadiise ay ka badato waa ay biisaa maskarigeed way bishaa hadiise ay ka badato waa ay biisaa saareer wuu bilaa hadiise uu ka bato waa uu biiyaa baridu haweenka waa ay bishaa hadiise ay ka badato waa ay biisaa bidaartuna ragga waa ay bishaa hadiise ay ka badato waa ay biisaa afar way bishaa hadiise ay ka badato waa ay biisaa baa la yidhi waay waxaa la yidhi maskarigeed way bishaa hadiise ay ka badato waa ay biisaa waxaa loo jeedaa maskartu waa geed ku maran geed waa geedka weyn geedka yar ee ku dhex maran haddii geedkaa yar ee wada caleenta ahi uu geedkaa weyn intuu isku maro uu wada qariyo waxa weeye geedkii weynaa wuu fool xumaanayaa markaa maskarigeed way bishaa hadiise ay ka badato waa ay biisaa geedkaa yari geedka weyn wuu qurxinayaa laakiin hadduu ka bato oo gebigiisiiba qariyo waa uu fool xumaynayaa saareer wuu bilaa hadiise uu ka bato waa uu biiyaa saar ereyga saar af Soomaaliga waa ninka inanlayaalka ah inanlayaalku waa ayo waa ninka la degan reerka uu ka qabo gabadha ama inanta ninka la degan reerka uu ka qabo gabadha ayaa la yiraahdaa inanlayaal saareer wuu bilaa hadii uu ninku yahay inanlayaal oo uu kalidii yahay waa okay waa sax laakiin haday 10 noqdaan oo 10 nin oo inanlayaala ay noqdaan oo 10 kuba reerkii ay gabadha ka qabeen ay la degan yihiin reerkaasi kuma farxaya mana jecla waxay oranayaan mar walba waa nimankan miyaanay reer lahayn maxaa inagu ina dul dhigay marka saar baa la yiri reer wuu bilaa hadiise uu ka bato waa uu biiyaa markuu kalidii yahay oo uu nin quraatay yahay waxa weeye mar maalinta reerku ducaysto sarartuu leeyahay loo geynayaa inantuu qabadii awgeed sararta ayuu loo geynayaa waa cadka ugu qiimaha badan sararta waxa la yiraahdaa waa cadka inantaa la yiraahdaa inanlayaalka iska leh oo halkaa uu u yaalaa markaa saarku reerka wuu bilaa hadiise uu ka bato waa uu biiyaa waa la karaahiyeystaa waa la nacaa bariduna haweenka waa ay bishaabaa la yiri hadiise ay ka badato waa ay biisaa gabadhu inay bari lahaataa quruxday ka mid tahay hadiise ay ka badato foolxuma ayay kordhinaysaa barigii hore waliba waxa qurux ay ahayd gabadha ay ka heli badan tahay ee ay ka maxaan ku raahdaayay buuran tahay waa ay ka qurux badneed baa la oran jiray laakiin noloshan casriga ah wixii way isbedeleen gabadha ay ka dhuuban tahay bay maanta ka qurux iyo caafimaadba badan tahay waxa la ogaaday buurnidii inay noqotay xanuun iyo foolxumo labadaba markaa bariduna haweenka waa ay bishaa hadiise ay ka badato waa ay biisaa ayaa la yiri oo Soomaalidu waxa kale oo ay yiraahdeen markay ka hadlayaan quruxda haweenka waxay yiraahdeen saddex u weynaato gabadhiyo waxay ku dareen labada sinood u waaweynaato waligoodba Soomaalidu qaar ka dambeeyay weyn waxa weeye bulshada Soomaaliyeed dhaqan ahaan dumarku waxay ku qurux badan yihiin bay yiraahdaan inay qaar ka dambe u weyn yihiin oo waa ku yiri saddex u weynaato labada indhood u waaweynaato labada kubna u waaweynaato labada sinoodna u waaweynaato bay yiraahdeen laba sinood waaweyn
hala haato laba indhoodoo waaweyn oo liin macaan talaaleen hala haato laba kuboo waaweyn oo aan ilaban ahayn hala haato ayay yidhaahdeen waayahay bidaartuna waxaa la yidhi ragga way bishaa haddiise ay ka badato oo bidaartii ay galaal noqoto oo madaxii eeri boodh uu noqdo waxa weeye dee way fool xumaynaysaa ninkii bidaartu ragga way bishaa in yaruun hadday tahay de sidaydaasoo kale waxoogay hadday ka soo yaro gasho fooda waa okay laakiin haddii ay timahaba la tagto oo ay dhukurto qofkii ninkii waa ay fool xumaynaysaa afar way bishaa haddii ay ka badatana waa ay bi'isaa taasi waa taa waxa kaloo la yidhi oo mahmahda ku xigtaa ay leedahay afar kama dharagto afar kama dharagto tanina waa sideedley sidoo kale afar kama dharagto afar kama dharagto afar kama dharagto caalimku cilmiga kama dhargo ninka caalimka ah ee cilmiga ama maadi ha ahaade ama diini ha ahaadee cilmiga ku talax tegay cilmiga kama dhargo jabtar buu u sii dhiibayaa kitaab buu u sii dhiibayaa cutub buu u sii gudbinayaa waxa weeye cilmiga ka dhargi maayee waxa weeye wuu sii wadaya ilaa inta uu ka dhimanayo caalimku baa la yidhi cilmiga kama dhargo dhulkuna waxaa la yidhi sidoo kale biyaha kama dhargo dhulkuna biyaha kama dhargo oo hadduu giddiga caawa roob da'ayo waxa weeye arki maysid dhul biyihii dee waxa weeye maalin kadib ama 2 cisho kadib waxaad arki doontaa un dhulkiyo aanay biyaba jirinba ayaad arki doontaa dhulkuna biyaha kama dhargo oo biyihiiba hoos bay u gelayaan ishuna daymada kama dharagta baa la yidhi ishuna daymada kama dharagto mar walba waxbay eegaysaa alla qurux badana fool xuma dheera gaabana madooba cadda casa ishu mar walba waxbay sidaa u eegaysaayo ay milicsanaysaa daymada kama dharagto il dayme ka dharagtay yaa soo garanaya la sheegi maayo ishu daymada kama dharagto aragtida waxa ay eegaysa kama dharagto waxa kaloo la yidhi dumarkuna ragga kama dhargaan baa la yidhi dumarkuna ragga kama dhargaan marka aan sida xun loo fasirin waxa weeye waa lamaanaha ilaahay isu baahiyeyo waa wax mar walba isu baahan marka dumarku ragga iyaguna kama dhargaan baa la yidhi sidaas oo kale afartaasina waa afar kama dharagto afar kama dharagto iyaguna waa sideedley mahmahdaasina waxaan ku soo khatimayaa baan filayaayo aan ku soo gabagabayn doonaa maanta mahmahdan saddexleyda ah oo iyana waxay leedahay 3 nin ma gaadhid 3 nin ma gaadhid 3 ma gaadhid nin weligaaba ma gaadhid ninna maalin ma gaadhid ninna sanad ma gaadhin baa ayaa la yidhi nin weligaa ma gaadhid ninna sanad ma gaadhid ninna maalin ma gaadhid nin weligaaba ma gaadhidoo ninka kaa gabadha wanaagsan ee kaa xaaska wanaagsan ee gabadhiisu gabadhaada ka hawlkarsan tahay ee gabadhiisu gabadhaada ka maxaan ku idhaahdaaye ka gaarisan tahay ee gabadhiisu gabadhaada ka kartida badan tahay ma gaadhi kartid ninkaa weligaa iyo allaha intaad nooshahay ninkaa ma gaadhaysid oo waa tii hore loo yidhi naagaa rag isdhaafshay carabtuna waxay tidhaahdaa waraa'a kulla rajulin cadiimin imra'atun cadiima waraa'a kulla rajulin cadiimin imra'atun cadiima nin kastoo magac iyo maamuus iyo maqaam weyn leh gabadhigiisa ah baa ka dambaysa nin weligaa ma gaadhidoo waa ninka kaa gabadha fiican ama kaa xaaska fiican weligaa iyo allaha kaama gaadhaysid ninkaa weligaa ma gaadhaysid wuu kaa sarraynaya waayo wuu kaa gabadh fiican yahay gabadhiisu gabadhaada way ka hawlkarsan tahay gabadhiisu gabadhaada way ka lexjeclo badan tahay gabadhiisu gabadhaada way ka dhaqaalo badan tahay gabadhiisu gabadhaada way ka gaarisan tahay gabadhiisu gabadhaada way ka aqoon badan tahay ilaa maasha allah ninna sanad ma gaadhid baa la yidhi oo ninka sanadkaa xoolihiisu saba barwaaqa ay yaallaan kuwaaguna saba abaara ay yaallaan sanadkaa xoolihiisa iyo xoolahaagu isgaadhi maayaan oo gaadhi maysid ninkaa sanadkaa waayo sabada barwaaqada ah ee xoolihiisu yaallaan iyo adiga oo xoolahaagu meel abaara ay yaallaan marka labadiinna neef sayladda la geeyo kiisunbaa markaba la hor iibsanayaa marka labadiinna harag sayladda la geeyo haraggiisunbaa marka horeba hore loo iibsanaya cad iyo caanaba xoolihiisu
way kaa taya iyo tiraba fiican yihiin ninna maalin ma gaadhid baa la yidhiyo waa ninka maalintaa kaa faras wanaagsan idinka oo sahaminaya ama safar ku jira ama dagaalba ku jira dhaqankii hore Soomaalidu maadaama bulsho had iyo jeer daaqsinta iyo deegaanka isku laaya ay ahaayeen ninka maalintaa kaa faras wanaagsan ama safar ha lagu jiro ama socdaal ha lagu jiro ama dagaal ha lagu jiree ninka maalintaa kaa faraska wanaagsanna ma gaadhid laakiin maanta ma faras baa jira dee waxaynu leenahay maanta ninka kaa gaadhi wanaagsan haddaad adigu wadato Volkswagen isaguna uu wato BMW ama uu wato Mercedes Benz dee waxaa laga yaabaa inaydaan isgaadhin saddexdaana ma gaadhid baa la yidhi maanta intaasaan ku soo khatimi lahaa insha allahu tacaala qaybtii murtida iyo maahmaahdana waynu sii wadi doonaa waxaan idiin hayaa maahmaaha kale oo aad iyo aad u tiro badan oo tiraleeya insha allahu tacaala waan soo gudbin doonaa haddii alla idmo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu